marbay kugu noqonaysaa inaad guursato xaaraam oo waa goorma adigoo aan caafimaadkaaguna wacnayn dhaqaalahaaguna wacnayn ee inanta aad soo hoydo ee kuu soo hoyata xag caafimaadna ma fiicnid xag dhaqaalana ma haysid miyaad fadhiisanaysaa oo sheekaynaysaa maxaad ku kordhinaysaa marka waxa weeyaan markaasna iyaduna lugooyo dee looma baahna waxaa shareecadu tilmaamaysaa markaad guursanayso ikhtiyaar zawja saalix ah Soomaalidu waxay tiraahdaa inankaagu mar buu hiilkaaga baahan yahay markaad hooyadii baadi doonayso inaad doonto qof dumara oo diin iyo akhlaaq leh inaad raadiso inanta aad guursanayso aad xulato inan taran leh oo reerkoodu ay taran leeyihiin inay tahay inaad doontid in waxaa ka mida waxyaabahaad ku xulanayso qof quraal iyo naxariis leh oo carruurta u turaysa oo qoyska iyo odaygeeda u turaysa xagga reerkaa laga sahminaya iyo aqalka iyo xaafaddooda ayaa laga sahminaya waxaad ku dadaalaysaa marka ugu horraysa inaad inan hesho hadda carmalka laftiisu meelo badan buu kaga wacan yahay guurka ogow inanta guurkeeda shareecadu ay tilmaanto way kaga fadli badan tahay wadda waqtigaan ii saamaxayne 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 ba la tirin karayo nusuustu ay tilmaantay kaga fadli badan tahay